idil ahaantiin meel u badnaga daawanaysaan daafaha caalamka iyo guud ahaan wadankaba soo dhawaada waa warbixinteeni toddobaadla ahayd warbixintan caawa waxaynu ku eegaynaa maxaa ka cusub guud ahaan kubadda cagta Soomaalida Hargeysa waxa ku cusub tartan noociisu cusub yahay oo balse markii ugu horeysay daawaday hadii aad maqasho adiga kugu noqonaya ama kaag ayaa ka socda guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa oo tartankaasi si joogto ah uga socday bilihii la soo dhaafay horyaalka kubadda cagta haweenka oo markii ugu horeysay guud ahaan Soomaaliland laga hirgeliyo ayaa ka socda Hargeysa Stadium horyaalkaasi oo ku gudhow gabagabo iyadoo ay harsan yihiin guud ahaan wax ka yar 3 kulan goorma ayaa la ciyaaraa guud ahaan maxaa tartanka xiise gooniyo u leeyahay waxyaabo badan oo bulshadu ay isweydiinayaan baa jira daawade hadii farintan ay ku soo gaadho tartankan waxa ka qayb galaya 6 koox team oo ka dhisan caasimadda Hargeysa oo haweenka u gaara dhawaanayay ahayd markii guud ahaan ay shaaciyeen koox ka dhisan caasimadda Hargeysa oo haweenka kubadda cagta ciyaara inay ka fadhiisan doonaan kubadda cagta markii ay waayeen saaxad kubadda cagta ay ku ciyaaraan ama hibadooda ay ku soo bandhigaan iyadoo warbaahinta ay la wadaageen halkii xafladii ay ka shaacinayeen inay ka fadhiistaan kubadda cagta Soomaaliland ayaa hore u mamnuucday guud ahaan in tartamadaasi ay ka qabsoomaan iyadoo London dheer barigaasi uu dhaxmaray guud ahaan istiijiid dheer muddo tartankaasi la joojiyay balse imika wasaaradda iyo xiriirka oo qayb ka ayaa tartankan hirgeliyay tartankani gooldalin buu leeyahay pointi buu leeyahay ama dhibco lagu tartamayo kala sareeya kooxo badan baa hogaaminaya kooxaha hogaaminaya 6 kooxood yaa hogaaminaya kooxda ugu sareysa sidoo kale waxa xiise gooniya leh in lagu tartamayo gooldalinta oo ah ta ugu sareysa ama ciyaartoyga ugu sareeya gooldalintu abaalmarin heli doono hadaba maxaa xiise gooniya leh tartankani waxa uu kaga duwayay tartamada kale taageerayaashu kama soo qayb gali karaan lama daawan karo Hargeysa Stadium waqtiga ay ciyaarayaan waxaase dadweygu isweydiinayaan xilliga ay ciyaaraan tartankani iyadoo dadweygu kala duwan ay ka falcelinaya ay lahaayeen halka lagu ciyaaraa halku ka socda si xilliga ayaa la ciyaaraa tartankani waxa la ciyaaraa xilliga subaxnimo iyadoo 3 cisho wiigi la ciyaaro 3 cisho subaxdii lagu ciyaaro Hargeysa Stadium iyadoo kulamada dhacaya maalin kastaba si hoose loo wadaago haweenka hadaba tartankani maxaa gooniyo u leeyahay warbaahinta daba joog ay ka tahay waa marka labaad ee taageerayaashu daba joog ay ka yihiin marka saddexaad tartankan lama wadaagi karo cid dabada ka oo aan ahayn cid gudaha joogta garsooruhu ma aha nin balse waa haween tartankan ayaa xiise gooniyo leh maxaa ugu la yaab badan inuu tartankan abaalmarinta xidiga haweenku lagu soo bandhigi doono guud ahaan habeenka tartamada kale la abaalmarin doono guud ahaan caasimadda ka socda iyadoo qofka ku guuleysta baana doorka abaalmarintaasi markii ugu horeysay Soomaaliland haweeneydaasi la gudoonsiin doono waa xiise gooniyo ay leedahay markii ugu horeysay muddo 30 sano ka bacdi Soomaaliland haween lagu abaalmarinayo kubadda cagta ciyaara xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ayaa qayb ka ah dhawaanayay ahayd markii la ganaaxay haweeney kooxda ubax ka tirsan state kulan iyadoo oo la wadaagay baraha bulshada state kulan iyo 1 milyan oo ganaaxa lagu riday haweeneydaasi iyadoo ay jaafajeeq dhaxmaray garsoori ciyaartaasi dhaxdhaxaadinayay tartamadan dadku way la yaabi doonaan markay arkaan balse waxaan daawada ku hayaa inaad tartanka gabagabadiisa aad goobjoog ka noqon doontaan oo bulshada sawiradooda iyo tartankaasi soo xidhitaankiisa la wadaagi doono maxaa xiise gooniyo u yeeli doona iyadoo habeenka baana doorka abaalmarintaasi dadku ay isweydiinayaan maxaa lagu qiimeyn doonaa maxaa lagu soo xili doonaa ciyaartoyga ku guuleysan doona abaalmarinta intaba dib ayaad ugu daawan doontaan wixii faalla iyo falcelina muuqaalada hoose ayaad nagula wadaagi doontaa ee tartankani ku saabsan si hadii aad tartankan soo dhaweynayso aragti ahaan iyo hadii aad leedahay tartankani suurtagal ma aha intaba aragtidaada hoose ayaad nagula wadaagi doontaa tartankan Hargeysa ayuu ka socdaa guud ahaan wasaaraddu qayb ay ka yihiin iyo xiriirku iyadoo la waafajiyay habka diinta Islaamka guud ahaan taageerayaasha laga mamnuucay warbaahintu mamnuuc ka yihiin iyo sidoo kale garsoorayaal raga inay dhexdhexaadiyaan mamnuuc ay ka yihiin balse sidaad u aragto hoos ayaad nagula wadaagi doontaa abaalmarintan hadii aad garan lahayd qofka u qalmaya wandala wadaagi lahayd balse nasiib uma helin abaalmarintan inaad tiraahdo hebel ayaa u qalmaysa guud ahaan waxa soo dhaw waxaynu dhaafaynaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo inala wadaagi doona aad bad u mahadsantiin meel baad naga daawanaysid